habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. waa galabnimo khamiista waana labada bisha Julaay sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar kamid ah efamyada magaalooyinka Geeska Afrika idaacadda caawana waxaa ka sii wada jiray kala socotiin doona Aasha Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa. qodobada idaacaddeena caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shirkadda World Remit oo sheegtay in adeegeeda xawaalada habka online-ka ah ay ku baahisay Soomaaliya. Soomaalida qurbaha ku nool waxay lacagta ku soo dirsan jireen hababka lacag qabashada ku saleysan wakiilada oo maalmahan dambe wiiqmay marka maanta daahfurkan adeega World Remit aan u daahfurayno macaamiisheeda Soomaaliya waxay u yeelan doontaa fursad weyn. waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan qaybtii shanaad ee barnaamijka taxanaha oo ku saabsan lixdan guurada ka soo wareegtay xorriyadda Soomaaliya. dadku markii yimaadeen dalkii lagu soo noqday guryahoodii way garan waayeen sawirka qof waliba malaha markuu uu dhageysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dheer ka baxday oo meelna aanad garanayn meeshay ahayd 150 tir oo isku wareega oo midhan ayaa meelada la dhigay oo intaas sikadooda kala dambeeya noqonaya qarxa oo qaybo kala baxsan isaguna waxaan ku uri sida dhagaxa ugu goglanaa. xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan. rabshado socday 2 maalmood ayaa 80 qof ugu dhintay dalka Itoobiya sida warbixinadu sheegay madaxa biliiska ee dalkaas kadib markii la dilay heesaa caan oo ka soo jeeday qowmiyadda ugu tirada badan dalkaas Itoobiya ee Oromada. Hachalu Hindusu oo heesihiisu siyaasadeed ay codsiiyeen dareenka muddada ay qabeen Oromada ah in laga liiday siyaasadda dalkaasi ayaa toogasho lagu dilay habeenkii Isniinta. dibadbaxyo cara leh ayaa ka dilaacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromiya oo ku hareeraysan magaalada halkaas oo xudunta dadka Oromada oo qowmiyadda ugu tirada badan ee dalkaasi isla mar ahaantaasina muddo ka cabanayay caburin iyo in faquuq lagu sameeyay oo ay ku sameeyeen qowmiyado kale oo ay ka tir badan yihiin balse maamulaya dalka. rabshadii ugu xumaa ayaa Arbacadii ka dilaacay magaalada uu ka soo jeedo Hachalu ee Ambo oo ku taala galbeedka Addis Ababa. carada xoogeeda ayaa salka ku haysay damaca Oromada in Hachalu lagu aaso magaalada Addis Ababa oo taariikh ahaan xudunta dhulkooda halkaas oo ay dareemayaan in laga barakiciyay. dowladda Itoobiya ayaa xaqiijisay in la xiray siyaasi hogaaminaya mucaaradka dalkaasi Jawaar Mohammed oo ahaan jiray milkiilo warbaahineed oo dhawaan ku biiray xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress iyo 34 qof oo kale. xariga ayaa yimid intii uu socday iska horimaad dhexmaray Jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xiriiray meydka Hachalu Hundeza. booliiska ayaa sheegay in meydka Hachalu loo waday magaalada uu ka soo jeedo Ambo si loogu aaso isla mar ahaantaasina Jawaar iyo taageerayaashiisa ay soo taageen ayna isku dayeen inay ku celiyaan Addis Ababa kadibna uu xigay isku dhac. ugu dambeyn Hachalu ayaa maanta lagu aasay magaalada Ambo. dalkan Mareykanka ayaa Arbacadii shalay laga diiwaan geliyay 50,000 oo kiis oo xanuunka COVID-19 ah taasoo noqonaysa tiradii ugu badneed ee uu dad ku dhacay viruska corona oo hal maalin laga xaqiijiyo gudaha Mareykanka tan iyo markii uu cudurkaasi dilaacay. ku dhawaad 30,000 oo kiis oo kamid ah 50,000 ee la xaqiijiyay ayaa laga soo wariyay gobolada California, Texas, Florida iyo Arizona. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Dr. Anthony Fauci oo madax ka ah macadka qaranka ee cudurrada faafa ee dalkan Mareykanka uu sheegay in kiisaska ay gaari karaan ilaa 100,000 maalinkii haddii dadka aanay qaadin tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19. hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in bishii June ee la soo dhaafay la diiwaan geliyay 60% oo kamid ah 10 milyan ee kiis COVID-19 caalamkooda taasoo ay ku tilmaameen calaamad muujinaysa in xanuunku uu soo laba kacliyay. madaxa hay'adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa sheegay in maalin walba caalamka laga diiwaan geliyo in ka badan 160,000 oo kiis oo COVID-19 isagoo dalalka caalamka ugu baaqay inay qaadaan tallaabooyin xooggan oo lagu xakameynayo coronavirus.
dadweynaha ruushka ayaa meelmariyay aftida wax ka bedelaysa dastuurka dalkaas oo ku jira qodob ogolaanaya in ilaa iyo 2034 uu awood xukunka sii hayo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. dadkii codeynaya badankooda ayaa fursad u siiyay madaxweynaha muddada dheer dalkaasi maamulayay ruushka in laba jeer oo kale uu isu soo taago xilka madaxtinimada, halkaas oo hadda xilligiisu uu ku egyahay 2024. siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku gacan seeray natiijada ka soo baxday codbixintii shalay, iyagoo sheegay in aysan aqoonsanayn. mas-uuliyiinta dalka Mexico ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay ku aqoonsadaan nin hubaysan oo weerar ku qaaday xarun dadka daroogada qabatima lagu daryeelo oo ku taala magaalada Irapuato, halkaas oo ay ku dhinteen 24 qof uuna ku dhaawacay 10 ruux oo kale. Pedro Cortes oo ah xogeyaha ammaanka dadweynaha magaalada Irapuato ayaa wakaalada wararka AFP u sheegay in ninka looga shakisan weerarka uu dadka ku qasbay inay dhulka xabadka dhigaan kadibna uu rasaas oo dawa qaaday kahor inta uusan gaari guduudan uga baxsan goobta. madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez ayaa sheegay isagoo ka jawaabayay weerarkaasi in wadankiisu aan u ogolaan doonin inuu galo fowdo iyo kala dambeyn la'aan. wargeyska La Jornada ee ka soo baxay dalkaasi ayaa qoray in ilaa iyo bishii December ee magaalada Irapuato ay ka dhaceen 4 weerar oo isugu jira dad la laayay, kuwa la afduubay iyo guryo la gubay. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warkii dunida. aan ku bilownay shirkadda xawaalada ee World Remit ayaa sheegtay inay ballaarisay adeega lacag dirista hannaanka online-ka xilli xawaaladaha ku shaqeeya habka lacag qabashadu ay dhibaato ka soo gaadhay xayiraadda xanuunka COVID-19 ee dunida. warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle. agaasimaha xawaalada World Remit ee dalalka Geeska Afrika Axmed Taani ayaa u sheegay VOA in kadib markii ay daraasad dheer ku sameeyeen dhibaatooyinka ka soo gaaray dadka Soomaalida ah xayiraadaha uu sababay cudurka COVID-19 gaar ahaan dadkii sida rasmiga ah ama tooska ugu tiirsanaa eheladooda dhinaca dibadda ku maqan ay go'aansadeen inay fidiyaan adeegoodan, isagoo intaasi ku daray in Soomaaliya ay ka daafureen adeegan oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka danyarta iyo kuwa dibadaha loogu maqan yahay ee muddooyinkii ugu dambeeyay ay xayiraadaha COVID-19 saamaynta ku samaysay ama ku keentay. Soomaalida qurbaha ku nooli waxay lacagta ku soo dirsan jireen hababka lacag qabashada ku salaysan wakiilada oo maalmahan dambe wiiqmay, saameyn weyn oo ku yeeshay xanuunkan COVID-19. marka maanta daahfurkan adeega World Remit aan u daahfurayno macaamiishayda Soomaaliya waxay u yeelan doontaa fursad weyn iyadoo u sahlaysa in iyagoo aqalkooda jooga lacagtii ka soo dirsan karaan oo ay meesha ka baxday gacantii dhexe. shirkadda World Remit oo u fidinaysa hab digital ah ay ku soo dirsan karaan. marka waa muhiim weyn buu leedahay. waxaad kaloo ogtahay Khadarow in lacagta xawaaladaha ee Soomaaliya loo soo diraa uu kaalin muhiim ah kaga jiro horumarka wadanka oo 23% lagu qiyaaso wax soo saarka guud ee wadanka inay kaga jiraan xawaaladuhu, kaas oo u sahla dad badan inay helaan cunno, waxbarasho, caafimaad iyo ifan waditaanka ganacsiyadooda. marka maanta inaan u daahfurno adeegaasi oo intan dambe saameyn weyn uu ku yeeshay xanuunkan COVID-19 waxaan is leenahay wuxuu u noqon doonaa fursad weyn Soomaalida dibadda ku nool inay lacagtii si degdeg ah oo fudud ay u sahlan ugu soo diri karaan qaraabadooda ku nool Soomaaliya. Taani ayaan weydiiyay dadka ka faa'iideysan kara iyo guud ahaanba awoodda goobaha ay ka diri karaan lacag ama u diri karaan shirkad ahaan. kontonka gobol ee Mareykanka waa laga soo diri karaa lacag maanta World Remit iyadoo la isticmaalayo. taasi waxay u fududeynaysaa in qof kasta oo Soomaaliya jooga uu lacagtii si fudud ku heli karo. Soomaalida gudaha joogtaana waxay lacagta ka qaadan doonaan Dahabshiil oo ah shirkad weyn oo Soomaaliya oo 200 oo laamood in ka badan ku leh Soomaaliya. marka waxay u fududeyn doontaa Soomaalida dibadda ku nool Mareykanka, Canada, Europe, Australia inay si fudud ugu soo diri karaan qaraabadoodii ku nooleed Soomaaliya. waxaan markaa u sheegaynaa macaamiishayda in wixii faahfaahin dheeraad ah ay booqdaan mareegteeda shirkadda World Remit www.worldremit.com ama ay la soo degaan barnaamijka aaladda telefoonka ee Android-ka ama iOS-ka si ay lacagtiiba maanta u dirsan karaan una tijaabin karaan. taxadir badan bay u baahan tahay amaanada khaasatan markay noqoto online iyo markay noqoto adeegga cash-ka ama muuqaalka intaba guud ahaan. waa maxay damaanada ama si aad kalsooni ugu muujin kartaan in lacagaha iyo adeegga aad samaynaysaan ay noqoto mid sugan? waxa weeyaan shirkadda World Remit oo hogaamisa habka digitalka la isku diro lacagaha adduunka waxaanu ka soo dirnaa in ka badan 50 wadan
waxaan u soo dirnaa in ka badan 150 wadan oo Soomaaliya hadda ku jirto taasi waxay tusaysaa inaanu adeeg baahsan oo fidsan aan u sameeyno macaamiisheeda adeegan waa adeeg digital shirkadda Wormid waxay hogaaminaysaa adeega digitalka ah digitalkuna uu ka aaminaad badan yahay ka degdeg badan yahay ka fursad badan yahay oo macaamiisheedana iyagoo aqalkooga jooga ayay si fudud uga soo dirsan karaan qofkii loo soo dirayna si fudud loogu soo diri karaa waxa iyadana xusid mudan inaan dhawaan bilaabi doono adeegii mobilka ee lacagta lagu qaadanayay mobile money-ga oo isagana macaamiishu ay ka heli doonaan lacagtaasi oo isaguna u sii sahli doono fududaasho dheeraadana samayn doona inay lacagti ku qaadan karaan laga soo bilaabo bishii Maarch ee sanadkan markii xaaladihii ugu horeeyay ee COVID-19 lagu arkay geeska Afrika waxa dhibaatooyin dhaqaale ay la soo gudboonaadeen qoysas iyo dad fara badan oo kasoo kuwa danyarta u sii badan dadka dibadaha ku tiirsanaa ee biilkooda looga soo dirayay dhinaca qurbaha asiyoo COVID-19 xayiraadaha uu keenay darteed aan wax lacag loo soo dirin Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa laanta afka Soomaaliga VOA ayaad dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington waxaa tan dhageystayaal aad ku soo dhawaataan qaybtii shanaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa 60 guurada xurriyadda Sahre Cidla Nuur ayaa inoo haysa taariikhdu dadkay bartaan dunida taariikhdu dadkay bartaan waxay dunaad mareen taariikhdu dadkay bartaan inay dantood gartaan kulan wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijyada taxanaha taariikhda ee maalmahan bay noo socday sida intii dhageysatay qaybtii afraad ee shalayto waxaynu ku dhageysanay marxaladaha kala duwan ee ay soo martay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo guud ahaanba gobolladii Koonfureed ee 60 sano ka hor xornimada ka qaatay gumeystihii Talyaaniga qaybta shanaad ee maantana waxaynu ku eegaynaa maraaxilkii kala duwanaa ee ay soo mareen gobolladii waqooyi ee Ingiriiska xornimada ka qaatay laga soo bilaabo 1991 markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee Soomaaliya oo ay xilligaasi ku dhawaaqeen gooni isku taag wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan Hargeysa ku soo diyaariyay aan idinku wareejiyo Khadar mahadsanid Sahre Cidla Nuur sanadkii 1991 waxa burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxaana magaalooyinkii gobolada waqooyi gacanta ku dhigay ururkii SNM ee dagaalka hubeysan kula jiray dawladda dadkii qaxoontiga ku ahaa xeryaha qaxoontiga ee bariga Itoobiya ayaa soo galay magaalooyinka iyaga oo habqana muuqaalka magaalooyinku ma aha kuwa ay ka qaxeen sida ay sharaxayso Nafiisa Yuusuf oo kamid ahayd dadkii waqtigaasi soo galay Hargeysa dadku markii yimaadeen dalkii lagu soo noqday guryahoodii way garan waayeen sawirka qof waliba malaha markuu uu dhageysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dheer ka baxday oo meel aanad garanayn meesha ahayd iskuulkii aad dhigan jirtay aanad garanayn halkuu ku yaalay aad dareemi karayso meel wada dundunsan wada baaba'san lagu oranayo ciyaal yarba halka muxuu ahaayay dhagxaanbay waxa halka ku qaraaceen oo miina la qaraxday oo aad arkayso ilmihiyo ama lug beelay ama lagu gacanba beelay inkasta oo wax nololi aanay ka suurtagelin magaalooyinka waqtigan oo aanay jirin cunto biyo hoy iyo wax la mid ah haddana intaasi oo dhan waxa ka sii duwanaa khataraha ka dhalanayay miinooyinka iyo walxaha qarxa ee ka haray dagaaladii ka socday muddada magaalooyinkan Haybe Maxamed Axmed waxa uu aqoon durugsan u leeyahay miinooyinka iyo walxaha qarxa sheelka oo ku yaala magaalada dhexdeeda oo maxay hayday xaafadihii ama sakadihii dadku deganaa ay ka soo hareeraha kaga soo wada wareegsan yihiin ayaa intaasoo mitir 150 mitir oo isku wareega oo midhan ayaa miinada la dhigay oo intaas sakadooda kala dambeeya noqonaya qarxa oo qaybo kala baxsan isaguna waxaan ku uri sida dhagaxa ugu goglanaa
ciidamadii SNM waxa ay u sii socdeen dhinaca galbeedka waxaana uu dagaal ka dhacay meelo ka mid ah gobolka Awdal sida Dila, Boorama iyo meelo kale. waxa dagaalkaasi uu geystay khasaare dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed bale. intaasi kadib ayaa xiriir toos ah waxa uu dhex maray odayaashii reer Awdal iyo saraakiishii ururkii SNM sida uu idaacadda VOA u sheegay Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar oo ka mid ah odayaasha reer Boorama. warqad buu noo soo diray ninkii madaxa ka ahaa ciidamada haystay jabhadaha uu leeyahay wal allayaal sida barigaba heshiis uga dhacay waxaan jecelahay in galbeedkana heshiis uu ka dhaco wixii hore ee dhacayna ilaahay naga dhaafo wax damo ay naga dhex dhacaana aanay jirin. aniga warqada la igu soo hagaajiyay 17 bishii February la ii soo qoray oo hay'ad uu ku saxiixan yahay madaxii jabhada SNM ka ahaa xagga ciidamada galbeedka. odayaashii Boorama u bandhigay odayaashii dhammaantood way aqbaleen waayo heshiis iyo nabadgelyo wax ka qiimo badan inaanay jirin waxaana dadku ay jeclaysteen maadaama ay tahay aan iscafiin oo aan issaamaxan wax lagu bedeli karaa inaanay waxaan noogu nimidnay Dila magaalada Leeyaab aan noogu nimidnay waxaan u soo dhaafnay Gabiil baan noogu nimid halkaas oo odayadii Sheekh Ibraahim Sheekh Madar oo ka madax ahaa aan kula kulanay heshiiskii halkaas aan ku sameynay waxaan ku ballanay Boorama ayaan ku ballanay 28 February ayaa Boorama odayadii aan ku martiqaadnay oo dhan iyo madaxdii SNM balse waxa cabsitaasi lamida laga qabay in dagaal uu dhex maro beelihii ka soo jeeday ururkii SNM ee bariga gobolada waqooyi iyo beelihii aan SNM ahayn ee deganaa gobolada bariga. Professor Cali Khaliif Kaleyd ayaa tilmaamaya in ay muhiim ahayd in laga hortago in dagaal beeleed uu dhex maro dadkii halkaasi wada deganaa. xiriir garaad Cabdiqani iyo qoliyaha SNM-to marka runtii wada hadallada waday Axmed Kayn oo nool hadda jooga xiriir marka qoliyaha SNM-to ayba isweydiinayeen xaggan iyo Boorama iyo ilaalow iyo Cadaba tagnay xaggan bariga ciidamo mawdirna ina kaahin maxaad kaaynayo Cabdiqani markay wada hadleena wuxuu yiri waranaba waa ogtiino annaba waxaanu nahay rejiimkana waa ka soo horjeednay warana wafti uu watay SNM-na iyo qabaa'ilka waa u tageen niman hadal u bilaabmay oo wax isku ogaana waa ahaayeen qoliyahaas waxaan u malaynayaa inay dib noqon lahayd shirka inay ka soo qayb galaan haddaan xiriirkaas Maxamed Kaahin iyo qoliyaha xagga SNM-ta ka soo jeeday aan xiriirkaas warba markaa waa jiray in wada hadallada xitaa xamar iyo ka socday in ciidamada ay diid waaba soo galeen oo gaalkacay waa qabsadeen fikir baa markaa jiray ciidamadan SNM iyo kuwa ay diid in la iskaaraan oo garow la isugu yimaado. dadaal badan oo la sameeyay waxa shirar nabadeed lagu qabtay magaalooyinka Sheekh iyo Boorama waxa lagu guuleystay in seeska loo dhiga nabadgelyo goboladii waqooyi waxaana la diyaariyay ergooyinkii ka qayb gali lahaa shirkii loo magac daray ka tashiga gobolada waqooyi kaasi oo la isla gartay in lagu qabto magaalada Burco ee gobolka Togdheer sanadkii 1991 shirkaasi oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada ee kala duwan waxa uu noqday shirkii lagaga dhawaaqay 18 bishii May sanadkii 1991 in Somaliland ay ka goday Soomaaliya inteeda kale. Suldaan Maxamed Jaamac Samatar oo kamid ahaa ergadii gobolka Awdal ka socotay isagoo ka hadlayay shirka Burco waxa uu muujiyay qiimaha walaalaynta beelaha gobolada waqooyi ay ku fadhiday. dadka gobolada waqooyi ay goosteen in ay tashadaan ayagoo ka tashadaan nabadgelyana beelaha lagu dhaqo oo la sameeyo kaasi ay soo gashay waxaan markaa dadka ku gogaabinaya in ay ka faa'iideystaan waxyaalihii soo maray. shirkan waxaa lagu go'aamiyay muddo 2 sano ah ay hoggaanka Somaliland hayso ururkii SNM iyadoo madaxweynihii ugu horeeyay uu noqday Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur madaxweyne ku xigeenkiisina uu noqday Xasan Ciise Jaamac. inkasta oo nabadi ay jirtay haddana waxa isla sanadkaasi dabayaaqadiisii iyo bilowgii sanadkii 1992 ay dagaal ka dhex qarxeen ururkii SNM gudihiisa iyadoo dagaaladaasina ay xuduntiisu ahayd magaalada Berbera waxaana uu ku fiday markii dambe magaalada Burco iyadoo dagaaladaasi ay geysteen khasaare naf iyo maalbale. odayaashii iyo madax dhaqameedkii dhexda u xidhay in nabad lagu soo dabaalo gobolada waqooyi ee xilligaasi waxa hormuud ku ahaa kuwii ka soo jeeday beelihii aan SNM ahayn. dadaalo iyo shirar dhaadheer oo isdaba socday kadib
waxaa lagu guulaystay in shirkii ugu dambeeyey ee nabadda si fiican loogu xidhay lagu qabto magaalada Hargeysa sanadkii 1992 waxaa dhammaaday labadii sannadood ee ururkii SNM uu hogaaminayay Somaliland waxaana la gaaray sanadkii 1993 waqtigaasi oo sidii ballantu ay ahayd lagu qabtay shirkii magaalada Boorame waxaana ergooyinkii oo dhami ay isugu tageen magaalada Boorame si loo soo doorto xukuumad cusub shirkan waxaa lagu doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo noqday madaxweynihii labaad ee Somaliland iyadoo madaxweyne ku-xigeenna loo doortay Cabdiraxmaan Cali Faarax tallaabadii ugu horeysay ee xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ay qaaday ayaa noqotay sidii hubka dhigis loogu samayn lahaa dhalinyarada ururkii SNM oo si firqsan oo baahsan ugu kala sugnaa meelo kala duwan garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa ayaa isu bedelay carwo maalin kasta loo daawasho yimaado oo ay beel ka mid ah beeluhu hubkooda ku wareejiso xukuumadda Maxamed Ibraahim Cigaal dhalinyaradana waan wax fikir ka haysanin dawladnimo isla markaana xirfadda ugu wanaagsan ee xilligaasi lagu shaqaysan karaa ay tahay qoriga iyadoo magacyadii kala duwanaa ee jabhadu ay beel ahaan ama deegaan ahaan ugu abtirsanayeen lagu qanciyay dhalinyaradaasi inay ku bedeshaan magaca qaran oo aan wax manaafacaada lahayn magac ahaan mooyaane Suldaan Naasir Suldaan Cabdi Ismaaciil ayaa isagu u arkaa in Cigaal uu fahamsanaa doorka salaadiinta iyo muhiimadda ay nabadda u lahaayeen khabarow SNM 1993 markay taladii wareejisay dawladdii la doortay beelihii SNMta ahaa ee hubaysnaa iyo kuwii aan SNMta ahayn markay ku soo dhiseen dawladda Boorama beelihii hubaysnaa ee SNMta oo salaadiintoodu ay hor kacayaan oo uu ugu horeeyay Suldaan Maxamed Suldaan Faarax oo xaqiiqdii taariikhda haddii laga run sheegayo oo cid baaldahaba lagu qoraayo hoggaanka dhaqanka ee Somaliland ee siyaastan qotoda dheer nabadiisa u dhigay uu ka ahaa iyo salaadiin kale oo fara badan oo Suldaan Saxardiid ka mid ahaa oo salaadiin kale oo fara badan oo aan hadda tirin karayna ka mid ahaayeen ee beelihii hubaysnaa ka soo jeeday ayaa iyaguna ku raacay oo beel waliba markay beelkii ugu horeysay dhigtay ay lagu la wareejiyay gacantii dawladda Professor Ali Khaliif Galeyd ayaa xusay sidii wax ku dhismeen iyo arintii dadkuna waa hubaysnaa qabaa'il waa la yahay intii kulli Maxamed Ibraahim Cigaal nin khibrad badanna waa in warana Prime Minister Soomaaliyeedna uu ahaa gobonnimadoonkii halkana isagaaba madax ka ahaa nin cid walbana garanaysana waa ahaa haddii uu meesha yimina wax laala wax jiray oo dhisnaa dalka ma jiri ugu horeysa waxayba ahayd sidee dadka hubka looga ururiyaa la wada hubaysan yihiin waana qabaa'il dhibaatooyinkaasi looga soo kabto waxa la isticmaalay ugu weynaa odayaashii bay ahayd runtii odayaashii hore oo la ururiyey oo dhexdhexaadin oo mar walbana shir halkana waaba lagu qabtay laakiin shirka ugu weyn ee arrimaha lagu soo afsharay sheekhu ka dhacay inkasta oo tallaabadaasi ay horseeday bidhaan nololeed oo yididiilo mustaqbal leh haddana muddo kadib waxaa dagaal uu ka qarxay magaalada Hargeysa dagaalkan ayaa ku fiday magaalada Burco iyo deegaano kale kaas oo u dhaxeeyay xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo koox siyaasiyiin oo iyagu ka soo horjeeday Mukhtaar Yuusuf Axmed waxa uu ka mid ahaa dadkii mar labaad ka qaxay magaalada Hargeysa sanadkii 1995 sanad meelaha aan haynin ayuu dhacay dagaal maaragtay siyaasadaysan oo ah qayb maaragtay ka tirsanay dad siyaasiyiinta reer Somaliland oo loo tirinayay markaa khadrow Soomaaliya inay doonayaan sanadkii 1997 oo dib loo doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxaa lagu gudoonsaday in axdi qarameedku uu noqdo mid laga hayaamo ama laga guro iyadoo madaxweyne Cigaalna uu hindisay samaynta dastuur damaanad qaada in dadku hal cod iyo hal qof ay maalin u dareeraan Somaliland gudaheeda laakiin samaynta dastuurka ayaa mucaaradad xoog leh ay kaga timid qaybo kamid ah bulshada oo u badnaa wadaado iyo siyaasiyiin
2001 bishii May ayaa lagu guuleystay dastuurka waqtigaasi waxa bilaabmay mucaaridad xoog leh oo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal lagala hor yimid iyada oo madax dhaqameedka qayb kamida iyo qaar kamida siyaasiyiinta mucaaridku ay abaabuleen in la sameeyo golo dhaqan waxana madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal uu weerar ku qaaday xukuumaddiisu koox salaadiina oo deganay magaalada Hargeysa Abdullahi Ibrahim Xaaji Xasan waxa uu kamid ahaa 4 qof oo subaxdaasi weerarka ku dhaawacmay marxuum Cigaal xukuumaddiisina 2000 waxa ay qaaday aftidii dastuurka markii ay qaaday tiimkii mucaaradka ahaa iyo salaadiintii iyo gruubkii isku xidhnaa waxay difaac ka galeen in nidaamka beelaha la joogo marxuum Cigaal xukuumaddiisina waxay difaac ka gasheedona in nidaamka xisbiyada badan heli karo dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal adag oo Soomaaliland xilli kala guur ayuu runtii Somaliland waxay qabatay 6 doorasho oo cod iyo hal qof sanadkii 2010 waxa si nabad loola kala wareegay kursiga ugu sarreeyay Somaliland ee madaxweynenimo kadib markii mucaaridku ay ku guuleysteen doorashadii xilliga dhacday laga bilaabo 2003 ilaa 2008 waxa dib loo dhisay 25 bridge oo dhaadheer kuwaas oo lacagaha ku baxay ay bixiyeen midowga Yurub sanadkii 2011 waxa shirkadda Coca-Cola ay ku maalgashatay Somaliland adduun dhan $17 milyan oo dollar iyadoo 2016 shirkadda laga leeyay dalka Sutag Imaaraadka Carabta ee DP World ay maalgelin ku sameysay Somaliland $442 milyan oo dollar taasi oo dekada magaalada Berbera ay ugu muhiimsanayd qaybta cusub ee 400 mitir ee ku dartay waxa kale oo kamid ahaa wadada isku xidha magaalooyinka Wajaale iyo Berbera Somaliland waxa ay samaysatay lacag u gaara calan iyo baasaboor waxay ku guuleysatay in aanay soo gelin dhaqdhaqaaqyada Islaamiga ee Al-Shabaab iyo Daacish inkasta oo sanadkii 2008 ay qaraxyo Al-Shabaab ka fulisay gudaha Hargeysa oo ay ku jirto madaxtooyadii looga arriminayay Somaliland nabadda Somaliland ayaa suurta gelisay inuu horumar weyn sameeyo ganacsiga xorta dhinaca kale Somaliland ayaa kulaalaysa khatar waxaana kamid ah colaadaha u dhaxeeya beelaha oo ku soo noqnoqda Somaliland iyadoo ay hoosta kaga lamaan tahay arrimo siyaasadeed iyo qodobka labaad oo isaguna ah dhibaatada qabyaaladda waa kan Professor Ali Khaliif Galeyd waxaanu dareemayaa dadku shacabku dareenka warwaa qaxnay warwaa dagaalanay war nabadda naas la nuugay war nabadda in lagu mintido dareenka waa ku arkaya dadkan shacabkan reer Somaliland intii aad iyo aad ya dareenka markiiba u arkay marka arinta nabadda iyo dastuurka iyo bilow fiican Maxamed Ibraahim Cigaal waxa uu sameeyayna wax lagaga soo gudbay buu ahaa arrimo laga yaabo dadka qaarkood si uu tafaahum inuu ka jirana qolyaha iyagan khaatumo waxaana laga maqlaa Somaliland la wada leeyahayna in la sameeyo lagu hirto oo yoolku uu noqdo dastuurkana bal dib loo fiiriyo iyadoo aynuba isu dhannahay yaa inaynu gobonnimadeena waxaynu ku wada raadin lahayn aynu isla raadin karnaa laakiin war arinta kale ee taala annakaaba joogna afallahu amma salaf waxaan iska ilowno waxaynu wada leenahayna aynu wada abaarno haddaynan innakoo Somaliland taa wada samayn war heshiis baa madaxweyne nala sax baarlamaan baa gudbiyay waxa ku yaalaana ee ugu waaweyna waa qodobo aan hadda kuba soo arkay Gabiley ninka mayorka halka jooga waxa dastuurkana ku yaalay maamul daadajin dadka waxa ugu weynay dalbayaan maamul daadajin waa ka iyo wixii ay noqon in loo gartoono loo tuuro laakiin waxaan wada leenahay oo meesha wax lagu qaybsanayo hadii ceedinka xitaa wax lagu qaybsanayo war wixii aynu ku badbaadayno ee innakoo Somaliland aynu Soomaaliya ku wajahayno waxa ka horeeya haddaanan ku qanacsanayn Somaliland hadda Somaliland toosnama matlis laakiin waan aaminsanahay anigu calay ahaan bay sharcsadee Soomaalidu ay tirabiyo halgodan bay isugu tagaan hadalkaygu wuxuu ku soo ururaya war labaduba waxay inoogu suurtoobayaan Somaliland oo dhisan oo nabad taalo oo horumariyaalo oo cidana aan ku dulmanayn cidana oranayn waana laga sadbursaday ee la wada leeyahay aan idinku celiyo Sahra Ciidla Nuur iyo Washington mahadsaned Khadar Maxamed Cakuule oo warbixintaasi magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay dhageystayaal waxa naga xusuusina in qaybta lixaad uguna dambaysa barnaamijyadan taxanaha aynu bariyo Jimcaha hadii Allah wadaliyo ogolaado ku soo gunaanadi doono barnaamijka faaqidaada toddobaadka intaynu barnaamijkaasi bari iskugu imanayna ka hor waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo taariikhdu dadkay bartaan dunida taariikhdu dadkay
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo barnaamijkaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysay haatana dhegaystayaal waxaanu guda gelaynaa qaybaha dambe ee idaacaddeenna caawa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban iyo mar kale jamaal axmed cusmaan. rabshado socday 2 maalmood ayaa 80 qof ugu dhintay dalka Itoobiya sida uu Arbacadii sheegay madaxa biliiska ee dalkaas kadib markii la dilay heesaa caan oo ka soo jeeday qowmiyadda ugu tirada badan dalkaas Itoobiya ee Oromada. Hachalu Hindusu oo heesihiisu siyaasadeed ay codsiiyeen dareenka muddada ay qabeen Oromada ah in laga liiday siyaasadda dalkaasi ayaa toogasho lagu dilay habeenkii Isniinta. Dibadbaxyo cara leh ayaa ka dilaacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromiya oo ku hareeraysan magaalada halkaas oo xudunta dadka Oromada oo qowmiyadda ugu tirada badan ee dalkaasi isla mar ahaantaasina muddo ka cabanayay caburin iyo in faquuq lagu sameeyay oo ay ku sameeyeen qowmiyado kale oo ay ka tir badan yihiin balse maamulaya dalka. Rabshadii ugu xumaa ayaa Arbacadii ka dilaacay magaalada uu ka soo jeedo Hachalu ee Ambo oo ku taala galbeedka Addis Ababa. Carada xoogeeda ayaa salka ku haysay damaca Oromada ah in Hachalu lagu aaso magaalada Addis Ababa oo taariikh ahaan xudunta dhulkooda halkaas oo ay dareemayaan in laga barakiciyay. Dowladda Itoobiya ayaa xaqiijisay in la xiray siyaasi hogaaminaya mucaaradka dalkaasi Jawaar Mohammed oo ahaan jiray milkiilo warbaahineed oo dhawaan ku biiray xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress iyo 34 qof oo kale. Xariga ayaa yimid intii uu socday iska horimaad dhexmaray Jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xiriiray meydka Hachalu Hundeza. Booliiska ayaa sheegay in meydka Hachalu loo waday magaalada uu ka soo jeedo Ambo si loogu aaso isla mar ahaantaasina Jawaar iyo taageerayaashiisa ay sartaageen ayna isku dayeen inay ku celiyaan Addis Ababa kadibna uu xigay isku dhac. Ugu dambeyn Hachalu ayaa maanta lagu aasay magaalada Ambo. dalkan Mareykanka ayaa Arbacadii shalay laga diiwaan geliyay 50,000 oo kiis oo xanuunka COVID-19 ah taasoo noqonaysa tiradii ugu badneed ee uu dad ku dhacay fayraska corona oo hal maalin laga xaqiijiyo gudaha Mareykanka tan iyo markii uu cudurkaasi dilaacay. Ku dhawaad 30,000 oo kiis oo kamid ah 50,000 ee la xaqiijiyay ayaa laga soo wariyay gobolada California, Texas, Florida iyo Arizona. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Dr. Anthony Fauci oo madax ka ah macadka qaranka ee cudurrada faafa ee dalkan Mareykanka uu sheegay in kiisaska ay gaari karaan ilaa 100,000 maalinkii haddii dadka aanay qaadin tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in bishii June ee la soo dhaafay la diiwaan geliyay 60% oo kamid ah 10 milyan ee kiis COVID-19 oo caalamka oo idil taasoo ay ku tilmaameen calaamad muujinaysa in xanuunku uu soo laba kacliyay. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa sheegay in maalin walba caalamka laga diiwaan geliyo in ka badan 160,000 oo kiis oo COVID-19 ah isagoo dalalka caalamka ugu baaqay inay qaadaan tallaabooyin xooggan oo lagu xakameynayo coronavirus. Dadweynaha Ruushka ayaa meelmariyay aftida wax ka bedelaysa dastuurka dalkaas oo ku jira qodob ogolaanaya in ilaa 2034 uu awood xukunka sii hayo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Dadkii codeynaya badankooda ayaa fursad u siiyay madaxweynaha muddada dheer dalkaasi maamulayay Ruushka in 2 jeer oo kale uu isu soo taago xilka madaxtinimada halkaas oo hadda xilligiisu uu ku egyahay 2024. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku gacan sayray natiijada ka soo baxday codbixintii shalay iyagoo sheegay in aysan aqoonsanayn. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane. waqtigii uu dalka ka talinayay nidaamkii kacaanka waxbarashada wadanka min dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed waxay ahayd lacag la'aan ardayga waxbartaana isla markii shaqo ayuu heli jiray. maanta waxbarashada waa lacag qoysaska danyartana waa ay ku adag tahay in ubadkooda ay waxbarasho u helaan. haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed teebaa fursad ahaan u wanaagsaneyd waxbarashadii hore iyo midda maanta oo lagu tilmaamo in casriga ay la socoto. waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cawil Aadan Jiis maamulaha iskuulka dawladda ee xaafadda Bundaweyn iyo Qadar Axmed Cabdulle oo kamid ah dhalinyarada dalka wax ku baratay muddadii burburka. waxaa hadalka ku hormaraya maamule Cawil Aadan Jiis. waxaan dhihi karaa 100% waxay fursad u haysteen waqtigii la soo dhaafay dawladdii dhexe dhalinyarada u haysteen fursad qaali ah
oo dhan kastaba from birimo ilaa iyo heer jaamacadeed ay u heli jireen si lacag la'aan ah muxuu ahaay daryeel ah ay u heli jireen waa maasanta cawil qadar runtii ana waxaan aaminsanahay teknolojiyada hadda la helay horumarka hadda la gaaray ee adduunku gaaray in hadda ay waxbarashadii hore iyo waxbarashadan ay hadda mid hadda ay fiican tahay sababtoo ah wax waagi hore aan suurtagali jirin ayaa maanta hadda suurtagal ay noqotay cawil waxaa tiri waxbarashadii xilliyadii hore ayay wanaagsanayd marka la barbar dhigo midda maanta haddii aad noo sabayso waxaa jirtay waagii hore ardayga lacag lagama qaadi jirin buwaag lacag la'aan baa la siin jiray fursado dhaqaalaa la siin jiray ilaa heer jaamacadood maantana waxa waaye uun ardaygii uusan ka bixi karin lacagta la qaadanayo maanta ayaa mataqaanaa sababtay in mataqaanaa arday lacag la'aan kusoo waxbartay ilaa jaamacad oo wadankiisii wixii ka soo baxo mataqaanaa lagu qarash garayn jiray ayaa waxaa dhacday in ay maanta tacliintii hore xitaa ay ka fiican tahay tacliintan kale tacliinta kale waxaad arkaysaa in mataqaanaa ardayga xitaa dhabarka laga goynayo oo arday mataqaanaa oo in rabi inuu kasoo bilaabo asoo birama kasoo bilaaban dugsi dhexe la geynayo asoo dugsi dhexe bilaaban jaamacad la geynayo marka dhibkaas weyn waa wax hadda sanadahan bilowdo waaye dhalinyaradana aan u rooneen oo dhabarjabku waa dhalinyarada qadar waa maqlaysaa cawil wuxuu leeyahay ma aha laba lees barbar dhigi karo tii hore iyo waxbarashada maanta adduunyada sida ay u horumartay maanta ardayga wuxuu awoodaa xitaa iskuulka hadduusan aadin inuu barihii bulshada ama internetkii ama wax walba waxbarashada uu kala socon karo oo ma xataa macalin keliya ma ahane googlaha xataa ama youtube-ka oo kaleeto uu xataa ka daalacan karo casharadii marka way ka fududahay sanadihii hore sanadkan marka waxaan aaminsanahay in sanadahan dambe waxbarashadu ay aada u fududaatay horumarka la gaaray aweed marka waxaan ku sabaynayaa in hadda la helay adeeg walbo oo waxbarasho oo ah dhan technology iyo dhan maaragtay inaad macna ka toos wax uga barato canuga marka wax la baraayo waa in uu lahaadaa jaranjaro marka haddii jaranjaro laba jaranjaro inta laga booto cunugii jaranjaro saddexaad qasban waxaa waa kala dilaaca cunugaaba soo dhacaa marka taas waa wax aan soo aragnay waaye laba ma aha saddex ma aha afar ma aha cunug waxaan arkay form 4 ah oo imtixaan ku jiro oo xitaa magaciisa aan qori karin xitaa waa arkay aniga arday la qaaday turkiga la geeyey heer jaamacad loo qaaday haddana wax qoraan iyo wax kale inta la waayey dib loo soo celiyey qoysaska danyartana maanta waa baaba'san yihiin oo waxa waaye nin lacag lahaa wax ka bixi kara asagoo saas ay tahay asagoo lacag dhiibaya haddana ilmihiisi mustakafi ahayn qaalaqayaana asagoo lacag dhiibayo waxa waaye cunugii waxa waaye haye intee rabtaa meeshaas intaas takeen waxaa kaloo arkay arday intaan iri warniyahow saas iyo saas sameey oo saas iyo saas sameey oo iga diiday waxaan maqlay ardaygii in la yidhi intaasoo lacag keen waxaan ku geynaynaa fasalka adiga aad rabta waxaa ku taageerayay waalidkiisa ku taageerayo waalidkiisna qalad buu ka dhaadhiciyo lacag buu haystay lacagtaas keena waalidkiisa hadduu lacag haysanin marka meelba kama gaareen marka dhaqaalaha ayaa yeelayo in ardaygii xitaa la dabagediye qadarhay soomaaliya waxaa waaye dal burburay oo waxbarashadii ay burbur ugu dhacday laakiin haddii aan si guud maaragtay aan uga hadlo waxbarashada maanta runta waxaa awoodaa inaad online ku barato xitaa aad online ku barato midda kale waxaa jirto waxbarashadii hore waxaa looga hadli jiray taariikhaha oo carabta looga hadli jiray iyo taariikhaha Yurub laakiin waxbarashada maanta waxaa looga hadlaa taariikhdii dalka ayadan waxay kamid tahay waxyaabaha la helay sanadahan dambe ama dhowrkii sano ee u dambeeyay la helay kamid tahay ay ugu fiican tahay waxbarashadii hore midda kale waxa waaye sidaa ka warqabto waxbarashada maanta ay adduunka ka jirto inay horumarsan tahay waxaa daliil kuga ah waxaa jira cudur weyn oo masiibo oo dunida maartay ku habsaday oo la yiraahdo COVID-19 cudurkaas ma uusan sababin in ama dib u dhac ku keeno waxbarashadii maanta ayadoo cudurkaas uu jiro ayaa haddana iskuulaadkii iyo goobaha waxbarashada ay online lagu baranayo marka waagi hore ma jirin online noocaas maanta waa online kii baa jira waxbarasho way socotaa idmeenis horumarka bay kamid tahay la gaaray
awil wuxuu leeyahay qadar waxbarashada online lagu bartaa oo midii hore oo hakadku ku iimaanay xataa hadda ma jiro wax hakanaya hay waxaasoo dhanba waxa waaye runtii marka u hadlayno intaasoo jaamacadood hadday ka soo baxaan min 600 arday dawladdu dakraana dunida ma jirto intaasoo arday oo soo baxdo jaamacada ka soo wada dhahayo waxay u baahan yihiin shaqadiina maanta wadankii wuxuu awoodo ma laha ardaygiina mustakafi ma ahan oo weli waxa waaye intuu imtixaan galana haddana ma soo bixi karo dhibka ugu weyn waxaa kaloo jirto ardaygii wuxuu wax ku bartay dalkiisii dalkaada laga bartaa oo bariilisku howlaa gabay ahaa jiri marka hore waxaa waaye waxbarashada inaad barato wax wadankaada quseeyo taariikhiyan iyo maskaxiyanba kadibna aad banaanka u baxdo ardayda waxaa loo dhigaya ayagoo wadankooda aqoonin wadan shisheeye haddaad tidhaahid maanta Soomaali meeqa wabiyay leedahay arday maanta ama jaamacad ku jiro ama dugsi ka baxay ma sheegi karo qadar ardayda hadda wax baranaya oo qaabka hadda aad tilmaantay oo online-ka iyo siyaabooyinka kala casriga wax ku bartay bal ka waran ma helaan wax shaqooyin ah oo haddii la barbar dhigo xilliyadii hore kale sidee dadku shaqooyin ku heli jireen haddaan laga hadlaynin Soomaaliya ama wadamo kale waa gooni laakiin dhalinyarada hadda soo qalin jabiso oo waxbarasho soo dhameyso ama jaamacad ama dugsi hadda shaqo ma helaan waxaana sanadihii hore oo waagii hore baa moodaa inay ka jaanis fiican tahay hadda waxaana keenaya qulqulka dhalinyarada ku baraarugti waxbarashada ilaa Soomaaliya inta madiina ahayd waagii siyaad bare iyo hadda isku mid maahan dadka hadda waxa waaye dadka waaga dadka wax baranaya way yaraayeen hadda laakiin dadku waxa waaye malaayiin qof baa wax barato qulqulka iyo isbedelka iyo maaragtay waxbarashadii oo noqotay online baa keenaysa in markiiba la helo boqolaal dhalinyaro ah wax soo baratay oo shaqo la'aan maaragtay shaqo la'aantaasna marta haddii aad fiiriso Xuseen oo shaqo la'aantaasna waxaan kala simanahay adduunka baan kala simanahay oo aad u aragtay Mareykanka waxa shaqo la'aan adduunyada ka jiro awil ugu dambeyn markaa fiiriso qaabkii hore ee waxbarashada qiimaha lahayd iyo maanta maxaa la dhihi karaa ummadda Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed waxaas dan u ah haddii talaabooyinkaas la qaado waxba u hagaagi karo runtii waxaa dan u ah in Soomaaliya oo midowday Soomaaliya oo mid ah in la helo ayay dhalinyarada Soomaaliyeed kulligeed mustaqbal ku noqon kartaa aye qadar in horta waxaa jirto caqabado weyn oo iska haysato dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan caqabada koowaad haysato caqabadu waa labo midna waxa waa mid dabiici ah wadan ka jirto oo ah dawlad la'aantii iyo maamul la'aantii midna waxa caqabad anagina haysato oo qofkii wuxuu rabaa maanta markuu soo qalin jabiyo jaamacad ka baxo dugsi ka baxo ama xataa masar diyaariyo wuxuu rabaa in muddo loo bilowdo maartay qofkii shaqo ku helo oo noloshiisa ku iftiimiyo taasna runtii waa wax fiican oo qof walba oo soo qalin jabiyo wax barto oo wixii uu ku riyoon lahay waa intaas laakiin waxa anagina waqti siino oon dul qaadano oo waqtiga shaqo la'aanta jirto oon dul qaadano oon sabarno oon dalkeena iyo dadkeena garab istaagno si markaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala hal mar oo guul ina siiyo oo shaqooyin la helo waxa waaye in macal usri usran waxa waaye culays kasta waxa ka dambeeyo fadad marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed uu Ilaahay shaqo siiyo intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay Awil Aadan Jiis maamulaha iskuulka dawladda ee xaafadda Buundaweyn iyo Qadar Axmed Cabdulle inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan idinkin baa khiyaarta la dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud sirwac iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinina haddii ilaahay raalli ku noqdo aan ku bilaabay cabdixakiin wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee Daily Sabah ayaa qoray warbixin ciwaankeedu ahaa Yurub oo xuduudahooda u furtay dadka 14 dalood dalxiis ku tagi kara halka Mareykanka laga reebay 2 toddobaad oo kale iyada oo kiisaska xanuunka COVID-19 uu ku sii fidayo dalka Mareykanka wadamada Hindiya Ruushka iyo Brazil ayaa iyaguna ku jira liiska dalalka aan wali Yurub loo ogolaan inay yimaadaan iyada oo dhaqaalaha dalalka Yurub uu aad hoos ugu dhacay COVID-19 awgeed wadamada koonfurta Yurub sida Greece, Talyaaniga iyo Spain ayaa waxa ay doonayaan in dalxiisayaashu ay dalkooda dib ugu soo noqdaan si ay u soo nooleeyaan wasaaradahoodii dalxiiska oo hoos u dhac weyn ku yimi. Cabdixaafid dad ka badan 15 milyan oo Mareykan ayaa sanad kasta u socdaala Yurub halka in ka badan 10 milyan oo reer Yurub ah inay u soo dalxiis tagaan wadankan Mareykanka. dadweynaha dalalka Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, South Korea, Thailand, Tunisia iyo waliba Uruguay ayaa iyaga loo ogolaaday inay imika u soo dhoofi karaan 27 dal ee ku jira midowga Yurub iyadoo sidoo kalena ay ka mid yihiin ama iyagana loo ogolaaday inay tagi karaan 4 dal oo kala qaaradaasi ku yaala. Yurub ayaa sheegtay in Shiinaha loo ogolaan doono in dadkiisu ay soo booqdaan Yurub marka uu Shiinuhu bay yiraahdeen dhammaan reer Yurub xayiraada ka qaado. cabdixakiin wargeyska The Financial Times ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Somaliland iyo Taiwan oo samaysanaya cilaaqo diblomaasiyadeed iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Taiwan Joseph Wu sheegay in ay labada xafiis ka kala furan doonaan labada caasimadood. Talaabadan ayaa la sheegay in ka caraysiisay Shiinaha. Taiwan 15 dal ayay xiriir la leedahay iyadoo caalamka Shiinuhu culays ku saaray maadaama ay u arkaan jasiiradaasi inay qayb ka tahay dalweynahooda Shiinaha. Taiwan ayaa sida wargeysku qoray heshiis la saxeexatay bishii February Somaliland laakiin imika ayuun baa la shaaciyay. Cabdixaafid madaxweynaha Somaliland ayaa isna arbacadii bogiisa Twitterka ku qoray in xiriirka labada dhinac uu ku qotomay ixtiraam iyo qiyam ka dhaxeeya isagoo intaasina raaciyay in dhawaan Somaliland ay xafiis ka furan doonto Taiwan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa warbaahinta u sheegay in 8 dal iyo waliba hay'ado waaweyn ay xafiisyo ku leeyihiin Somaliland waxaana yidhi uma aragno in aan wax ka duwan iyaga samaynayno marka dhinac laga eegana buu yidhi Somaliland waa dal madax bannaan. wargeyska ka soo baxa dalka Sacuudiga ee Carabiya ayaa warbixin ay daabaceen cabdixakiin oo ciwaankeedu waxa uu ahaa sanadkan oo Sacuudiga dadkii soo xaji lahaa ay ka soo xajayaan oo kaliya gudaha dalkaasi. wasaaradda caafimaadka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in magaalooyinka Maka, Madiina iyo Carafaba laga samayn doono cusbitaalo gaar ah oo la tacaala haddii ay soo korodho xaalad caafimaad oo degdeg ahi. wasaaraddu waxa ay sheegtay inay soo xajayaan oo kaliya dadka da'doodu ka yar tahay 65 degan Sacuudiga ee aan qabin xanuuno kale. dadkaasi ayaa laga eegi doonaa in xanuunka ay qabaan iyo in kale ka hor inta aan loo ogolaan inay gudaha u galaan magaalooyinka Maka iyo Madiina. dhinaca kale cabdixaafid dalalka bariga Asia ayaa iyaguna sanadkan xajka ka joojiyay dadkooga ka hor inta aanu Sacuudigu soo saarin amarkan. wasiirka xujaajta ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa soo dhaweeyay go'aanka dalalkaasi isagoo sheegay inay ahmiyadu tahay ilaalinta caafimaadka dadka oo buu yidhi ahayd sidoo kale ahmiyada koowaad ee dawladda Sacuudiga. waxaana uu intaasi sii raaciyay inay dhici karto in ay soo xajaan sanadkan in dad ka yar 1,000 qof iyadoo ujeedaduna ay tahay buu yidhi xakamaynta xanuunka COVID-19. wargeyska Daily Sabah ka soo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin ay qoreen ciwaankeedu waxa uu ahaa dalalka midowga Yurub oo ay u badan tahay inay mamnuucaan in Mareykanka laga soo galo. Mareykanka ayaa waxa ay ku eedeeyeen inuu ku guuldaraystay oo uu dhayalsanayo inuu xakameeyo xanuunka COVID-19. Mareykanka oo dadka ugu badan caalamka xanuunka laga helay iyada oo kiisas cusub la helo maalin kastaba imika kaalinta labaadna ku jira meelaha ugu khatarta badan Ruushka iyo Brazil ayaa cabdixakiin u soo raaca. aqalka cad ayaan wax warbixin ka soo saarin hadalka midowga Yurub waxayna tan indiyada ku tahay Donald Trump oo lagu eedeynayo kiisaska cusub isagoo iska dhagamariyay in dalka si guud oo baaxad leh looga baaro xanuunka. dadka badan 120,000 ayaa Mareykanka ugu dhintay xanuunka COVID-19. Anthony Fauci oo ah sarkaal caafimaad oo sare isla markaana madax ka ah xarunta xanuunada faafa ayaa warwar ka muujiyay sida baaxadda leh xanuunku gobolada qaar ugu faafayo. bishii March ayaa markii xanuunkan sida aadka ugu fiday Yurub madaxweyne Donald Trump uu ka mamnuucay in reer Yurub ay u soo dhoofaan dalkan Mareykanka waxayna tani ka cadaysisay dawladaha Yurub.
wargeyska ka soo baxa dalka Kenya ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalkaasi oo dadka xanuunka laga helay ay gaareen 4950 qof dhammaan dadka xanuunka laga helay waxa uu dhasheen dalka Kenya sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay 120 kamid ah waa rag 35 waa dumar da'doodu waxa u dhaxaysaa 1 sano ilaa iyo 7 jir. Cabdixakiin Nairobi ayaa kiisaska cusub ee ugu badan laga helay iyadoo la xaqiijiyay 104 kiis oo cusub magaaladaasi Nairobi Busia 19 ayaa laga helay halka 10 kiisna laga helay magaalada Mombasa. cabdixaafid oo dal kasta oo ku yaala Afrika ayaa waxa uu diiwaan geliyay kiisas xanuunka COVID-19 iyadoo wadanka Masar ugu horeeyay isla markaana ugu dambeeyay wadanka Lesotho. xawaaraha Afrika xanuunku ugu fidayay ayaa meelaha qaar oo aad ugu badnaa waxaana warwar ka muujiyay xafiiska Afrika ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo waliba saraakiisha kale caafimaadka. dhakhaatiirtuna waxa ay ku dadaashay inay baaritaan badan lagu sameeyo dadka meelaha xanuunku ku badnaa. badiba dalalka Afrika waxa la qaadayaa xayiraadihii saarnaa laakiinse waxa wali bando ay saaran tahay goobaha la isugu yimaado. intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaa waxyaabihii ay wargeysadu qoreen toddobaadkan cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo. markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. dhegeystayaal shalay waxa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalada Ingiriiska, Talyaaniga iyo sidoo kale Spain. waxaana haddii aynu ku hormarno dhinaca dalkaasi Talyaaniga kulmada la dheelay naadiga Bologna ayaa gegadeeda ku martigelisay naadiga Cagliari waxaana ay ku kala baxeen gool bareeja. naadiga Fiorentina ayaa martigelisay naadiga Sassuolo waxaana ay kala kulantay guuldarro 3 gool ah oo naadiga Fiorentina gurigeeda lagu dhadhansiiyay guuldaradaas. Hellas Verona oo martigelisay naadiga Parma waxay uga wadroonatay 3 gool. Lecce ayaa waxa ay guuldarro kala kulantay oo gurigooda ah waliba naadiga Sampdoria oo 2 gool kala kulantay. Spal ayaa la kulantay naadiga AC Milan waxaana ay ku kala baxeen bareejo 2-2. hase yeeshee kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa Inter oo ku durdurisay naadiga Brescia ugana awoodroonaatay 6 gool iyo waxba. ciidanada Ashley Young, Alex Sanchez, Di Ambrosio, Gagliardini, Eriksen iyo Candreva ayaa u dhaliyay 6 gool ee naadiga kubadda cagta Inter Milan ay ku badisay. maanta Atlanta ayaa la dheeli doonta naadiga Napoli halka Roma ay la ciyaari doonto naadiga Udinese. horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee Juventus oo iyadoo 29 kulan oo ciyaartay iska leh 72 dhibco halka Lazio ay kulmo inta la mid ah oo dheeshay iska leedahay 68 dhibcood. Inter ayaa 64 iska leh halka Atlanta ay 57 dhibcood iska leedahay. dhinaca dalka Spain kulmo xiiso badan ayaa maanta dhacay. Deportivo Alaves ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga Granada waxaana ay uga wadroonatay naadiga Granada oo ku badisay 2 gool iyo waxba oo Deportivo Alaves ay guuldaradaasi la kulantay. Valencia ayaa guuldarro xanuun badan gegadeeda kala kulantay naadiga Athletic Club waxaana ay ku dhamatay ciyaartaasi 2 gool iyo waxba. Real Betis waxa ay la ciyaartay naadiga Villarreal 2 gool iyo waxba. naadiga Villarreal oo martiyeed ay ku wadroonatay halka Rayo Vallecano iyo Levante ay Braga iyo Eber ay isla dhaaf waayeen. maanta naadiga Eber ayaa la ciyaari doonta naadiga Osasuna. Real Sociedad waxay la ciyaari doonta naadiga Espanyol halka Real Madrid oo horyaalka hogaaminaysa la ciyaari doonta naadiga Getafe. horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga Real Madrid oo iyadu markaa 32 kulan oo ciyaartay iska leh 71 dhibcood. Barcelona ayaa 70 dhibcood iska leh 33 kulan ciyaartay halka Atletico Madrid ay 59 dhibcood iska leedahay. Sevilla 57 dhibcood iska leedahay. dhinaca dalkaasi Ingiriiska kulamo kale oo xiiso badan ayaa la dheelay waxaana ay kooxo isku arkeen. naadiga Bournemouth ayaa la ciyaartay naadiga Newcastle United waxaana ay ku dhamatay ciyaartaasi 4 gool. naadiga Newcastle ayaa ku wadroonatay halka Arsenal ay 4 gool waxba kaga wadroonatay naadiga Norwich waxaana naadiga Arsenal ay u soo gashay in kan toddobaad ay sii gasho maadaama guushaasi muhiimka ay gaartay. Everton oo martigelisay naadiga Leicester waxay uga wadroonatay 2 gool oo naadiga Leicester ay guuldarro kala kulantay. West Ham ayaa guuldarro xanuun badan dul dhigtay naadiga Chelsea waxaana ciyaartaasi ku dhamatay 3 gool iyo 2 gool oo naadiga kubadda cagta Chelsea guuldarro la kulantay. 2 gool naadiga Chelsea waxa u dhaliyay Ryan Williams oo mid rigooro u ahaa halka naadiga kubadda cagta
West Ham daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaaryahan Yarmolenko u dhaliyay goolkii guusha isla mar ahaantaasina ka dhigay ciyaarta 3 gool iyo 2 gool maanta naadiga kubadda cagta Sheffield United ayaa la ciyaari doonta naadiga Tottenham halka Man City ay la dheli doonta naadiga Liverpool ayaa horyaalkaasi u xaqiijisay inay ku guuleysatay halka Manchester City ay kaalinta labaad ku jirto waxaana kooxuhu ay u kala horeeyaan naadiga Liverpool horyaalka ku guuleysatay iska leedahay 86 dhibcood Man City waxay leedahay 63 dhibcood Leicester waxay leedahay 55 dhibcood Chelsea waxay iska leedahay 54 dhibcood halka Manchester United ay iska leedahay 52 dhibcood dhageystayaal waxay ku soo kordhawaan dib u gudbin doonaa xubinta ciyaaraha inay joogto markale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiiduucana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha mulkiday qurux sida mooda subaxnimo sawmil ixtigaagi ila helin maxaa kale inayahay mulkiday qurux sida mooda subaxnimo sawmil ixtigaagi ila helin maxaa kale تعينو ميسان دارليو محبيك القعسيدة قلبي جايقا ميقايني موجودة تعينو ميسان دارليو محبيك القعسيدة قلبي جايقا ميقايني kalgacayl muqweynba markastan kuweega kalgacayl muqweynba igu baxanayo naftan kamar minabi igu baxanayo naftan kamar minabi markastan kuweega kalgacayl muqweynba markastan kuweega kalgacayl muqweynba igu maxanayo naftan kamar minabi igu maxanayo naftan kamar minabi mulkida sharaf maamuuska gobanimo sawmaha shababi idnahayga madmudire inan yahay mulkida sharaf maamuuska gobanimo sawmaha shababi idnahayga madmudire معاني أدور سيدا غبتيدا مودقيني مخورا تعيو هيبا لغم تيرسيو معاني أدور سيدا غبتيدا مودقيني markastan kuweega kalgacayl muqweynba markastan kuweega kalgacayl muqweynba igu baxanayo naftan kamar minabi igu baxanayo naftan kamar minabi markastan kuweega kalgacayl muqweynba markastan kuweega kalgacayl muqweynba igu baxanayo
guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo ee caawa ayaa intaasi ku dhan waxaa idinla socodsiinayey cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo hay mulkida iqura qasida mooda subaxnimo soo milix sigaagi